بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal halkan waa radio gedo xaruntiisa degmada Doolo Soomaaliya moojada 89 eber megahertz ku soo dhawaada warka gudaha ee daafaha caalamka inaga soo gaaray waxaana diyaar idin la ah anigoo ah Cabdinuur Cismaan Cabdi munaasabada xuska maalinta bini'aadanimada adduunka ee ku beegan 19 Agoosto ayaa lagu qabtay degmada Doolo Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo la kulmay dhigiisa dalkaasi Djibouti ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisii ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Qatar kooxda al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Bariire wafti ay hogaaminayso wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Fawziye Maxamed Sheekh oo gaartay magaalada Baydhabo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo la dagaalamayso maandooriyaha qamriga akhbaaraadka kale oo caalamka idin kaga haynana waxaa ka mid ah nin Mareykan ah oo lagu xiray gobolkaasi Ohio ee Mareykanka kadib isagoo la arkay inuu halis ku yahay xarunta Yuhuudda iyo sidoo kale Uganda oo 10 qof ku dhimatay qarax ka dhashay gaari siday shidaal qodobadaasi oo faahfaahsan iyo xubintii ciyaaraha ayaad goordhow dhageysan doontaan ee u diyaar garooba munaasabada xuska maalinta bini'aadanimada adduunka ee ku beegan 19 Agoosto ayaa lagu qabtay degmada Doolo Soomaaliya warbixintaasi waxaa magaalada Doolo inooga diyaariyay Maxamed Macalin Aadan munaasabadan waxaa lagu xusiyay maalinta bini'aadanimada adduunka oo ku beegan maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 19 bisha 8 2019 waxaana soo agaasimay maamulka degmada Doolo Soomaaliya iyo hay'adda UNOCHA waxaana ka soo qayb galay xubno ka socday hay'adaha samafalka ee markaasi xarumaha ku leh degmada Doolo Soomaaliya iyo maamulka degmada Baradxaawo sanadkan waxaa lagu xusayay munaasabadan dumarka shaqaalaha ee markaasi ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada iyagoo la sheegay inay kaalin weyn ka qaataan u gargaaridda dadka markaasi dhibaataysan ee ay markaasi u shaqeeyaan maxamuud maxamed buraale oo ka tirsan hay'adda UNOCHA ayaa ugu horeyn munaasabadan ka hadlay waxaana uu ka warbixiyay muhiimadda ay maanta oo kala leedahay wakiilkii xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Ciraaq u fadhiyay 2009 qaramada midoobay golaheeda ammaanku waxay u calaamadeeyeen maanta oo Agoosto ay tahay 19ka inay noqoto maalin la xuso maalinta bini'aadanimada adduunka maalinta kadib sanad kasta waa loo dabaaldegaa 19 Agoosto inay ahaato maalinta lagu xuso dadka iyo shaqaalaha habeenaya maalin shaqeynaya ee u gargaarayo dadka dhibaataysan sanadkan waxaa la xusayaa dumarka oo u dabaaldegaya ayagoo sameeyay isbedel aad u weyn oo ka sameeyeen malaayiin dumar rag iyo caruur ah kuwaas oo ay saameysay colaadaha abaaraha iyo dhibaatooyinka I'm very proud that this year our World Humanitarian Day is putting the special focus to the women humanitarians. أنا هالدول قبل كشف ليسا حولها بالأمانة هذا يعني مفرح سراي إن ما أنت لو أستريو ما أنت بالأمانة الدنيا قاعد هالدول. ugu dambeyntii munaasabadan waxaa soo gabagabeeyay oo ka hadlay gudoomiyaasha maamulada Doolo Soomaaliya iyo Baradxaawo waxayna ka hadleen xaaladaha bini'aadanimo ee markaasi ka jira gobolka Gedo iyagoo markaas codsaday in gargaar degdeg ah lala gaaro bulshada markaasi u baahan in la caawiyo waxaa jirto maanta arrintan uga faa'iideysanayna maadaama loogu magac daray bini'aadanimada waxaan uga faa'iideysanaynaa waxaad ogtihiin haddaad hay'adihii deganaa deegaanka gobolka Gedo gaar ahaan degmada Doolo saldhigoodu u ahaatii inay jirto abaar baahsan
oo maanta magaala madaxda gobolka Gado iyo meesha hadda aan joogno ugu dambayso gobolka Gado xuduudda ah roobka soo hayay inuu ka diin ayta kadib maanta waxaan halkaan uga faa'iideysanaynaa waa maalin munaasabad weyn munaasabadan marka waxaan uga faa'iideysanaynaa hadduu alla qadaro annagoo ka maamul ahaan maamulka beled xawaaniga afkiisa ku hadlaaya waxaan halkaan uga faa'iideysanayaa Jubbaland waxaa ka jirta guud ahaan awaar baa ka jirta Jubbaland waxaa ka jira waxyaabo fara badan Jubbaland gacan qabadyo fara badan oo ay soo helin wax hay'adaha ay ka helsamoogiin ayaa jirta abaartaas markaa siyaabo kala duwan bay leedahay gobolada qaar iyadoo Jubbaland abaarta ay ka wada jirta qolaba meel bay u sii joogtaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo la kulmay dhigiisa dalkaasi Djibouti Cabdullaahi Maxamed Xamuud ayaa warkaasi inoo hayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo dhigiisa jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta magaalada Djibouti ku yeeshay wada hadallo miradhal ah oo ku aadan sare u qaadida xiriirka xooggan ee labada dal madaxweynayaashu waxay ku heshiiyeen in la sii dardargeliyo iskaashiga labada dal mid ku dhisan walaaltinimada iyo wax wada qabsi booqashadan ayaa salka ku haysa aragti wadaagga ku salaysan iskaashiga wadajirka dan wadaagga iyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada shacab ee walaalaha ah ee Soomaaliya iyo Djibouti safarkan waxaa madaxweynaha ku heliyay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Canshuur Xasan iyo agaasimaha madaxtooyada mudane Nuur Diiriye Xirsi ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Qatar Nuruddin Xasan Deeq ayaa inoo diyaariyay warkaasi wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Qatar Sheekh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani iyo wafdi uu hogaaminayo oo qayb ka ahaayeen wasiirka wasaaradda gaadiidka isgaarsiinta iyo dekedda dowladda Qatar Jassim bin Sayf Ahmed Al Sulayti ayaa maanta booqasho ku yimid magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulle Cusmaan ku soo dhaweeyay wafdi ka socday Qatar ee booqasho ku yimid magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda Qatar ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha ku yeeshay kulan ay ugu wada hadlayeen keenta xiriirka soo jireenka ah ee labada dawladood iyo dardargelinta mashaariicda ay Qatar ka fuliso Soomaaliya wali dhageystayaal waxaad nagala socotaan Radio Gedo xaruntiisa degmada Doolo Soomaaliya kooxda Al-Shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Bariire Xuseen Cabdirasaaq Sheekh Maxamed ayaa warbixintaasi inoo hayo warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab xalay ku dhaxmaray deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose dagaalkan ayaa yimid kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa danab ay ku leeyihiin duleedka deegaanka Bariire halkaas oo dhowr bilood ka hor ciidamada dawladda kala wareegeen ciidamada dawladda ayaa dhawaan Al-Shabaab kala wareegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Awdheegle iyo deegaano hoos imaada taliyaha ciidamada lugta xooga dalka Soomaaliyeed General Odowa Yusuf Raage ayaa sheegay inay ka hortageen weerarka Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigga ciidamada dawladda isla markaana ay ugu dileen in ka badan 20 dagaalyahan waxaan xaqiijinaynaa in aan khasaare badan gaarsiinay Al-Shabaab 20 ka tirsan ayaa ciidamada dawladdu ku dileen duleedka Bariire kadib markii ay isku dayeen inay soo weeraraan saldhigga ciidamada ee Bariire ayuu yiri General Odowa weli ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab waxaana wararka saak soo baxay ay sheegayaan in ciidamada dawladda ay ka wadaan duleedka Bariire dhaqdhaqaaq military iminkana Baydhabo wafti ay hogaaminayso wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziye Maxamed Sheekh oo gaartay magaalada Baydhabo mar kale waxa warbixintaasi magaalada Baydhabo inoogu diyaariyay Xuseen Cabdirasaaq Sheekh Ahmed wafdi ay hogaaminayso wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale waxaana xubnaha wafdigan isugu jireen wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane Cismaan Libaax Ibrahim
agaasimaha guud ee wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Soomaaliya. Ujeedka safarka wafdigan ee hogaaminaysay wasiirad Foosiyo ayaa ah ka qaybgalka shir ku saabsan arrimaha tamarta Soomaaliya. Ujeedka safarkan ee hogaaminaysay wasiirad Foosiyo Maxamed Sheekh ayaa ah ka qaybgal shir ku saabsan arrimaha tamarta Soomaaliya oo 20 bishan ka furmi doona magaalada Baydhabo, kaasi oo u dhaxeeya wasaaradda tamarta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Shirkan lagu wado inuu ka furmo magaalada Baydhabo ayaa waxa uu socon doonaa muddo 4 maalin ah kuna eg 24 bishan, waxaana lagu eegi doonaa tayeynta awoodda tamarta iyo wax u qabsoomay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka. Marwo Foosiyo Maxamed Sheekh, wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha, ayaa hore u ballan qaaday sidii ay u dardargelin lahayd howlaha adeegyada muhiimka ah ee bulshada uga fadhiyaan wasaaradda tamarta, waxaana jira mashaariic kala duwan oo horumarineed oo ay hormuud ka tahay wasaaradda, kuwaasi oo loogu talagalay inay bulshada ka faa'iideystaan. haatana Puntland, dowlad goboleedka Puntland oo la dagaalamayso maandooriyaha qamriga. ciidamada amniga Puntland ayaa howlgallo oo kala duwan ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan Puntland waxa ay gacanta ku soo dhigeen maandooriyaha qamriga iyo dadkii ka ganacsanayay. howlgalka ay ciidamadu ka sameeyeen magaalada ganacsiga ah ee Boosaaso ayaa lagu soo bandhigay qamri iyo dadkii ka ganacsan jiray oo isugu jira rag iyo dumar. taliyaha qaybta booliska Boosaaso gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamed oo ka hadlay goob fagaaro ah oo maanta qamriga lagu burburiyay ayaa sheegay in magaalada Boosaaso iyo deegaano kale ay weli ku harsan yihiin dadka ganacsada sidoo kalena isticmaala kuwaasi oo noocyo kala duwan leh. dadka ka ganacsanaya qamriga ayaa la horgeeyay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari. sidoo kale deegaano ka tirsan gobolka Mudug ayaa cabasho ka soo gudbiyay ka ganacsiga qamriga, waxaana deegaanada ay ugu horeyso magaalada xarunta ee Gaalkacyo ka bilowday howlgallo lagula dagaalamayo qamriga. weli dhegaystayaal waxaad nagala jaan qaadaysaan Radio Gedo codka gobolka Gedo moojadiisa 89.eber megahertz. iminkana xubintii ciyaaraha waxaa diyaar u ah Nuuruddin Xasan Deeq. mahadsanid Cabdinuur oo wararka ka imaanaya ciyaaraha ayaa la sheegaya ciyaaryahankii hore ee kooxda Liverpool iyo Barcelona Coutinho ayaa u dhaqaaqay kooxda Bayern Munich ee ka dhisan dalka Germany, kaasoo oo xataa la guddoonsiiyey maaliyadiisa uu lambarkana uu ku dheeli doono diishiisa oo markii horeba kooxda Liverpool uu u dheeli jiray ee lambarka 10aad. Cabdinuur, haddii aan fiirno ciyaarihii xalay ee Premier League waxaa wada dheelay kooxda Sheffield United iyo Crystal Palace, kulankaasoo oo ku dhamaaday 1-0. sidaasna waxay guusha ay ku raacday Sheffield United. goolkaasna waxaa u dhaliyay Lundstram 47 daqiiqo markay ahayd. sidoo kale Cabdinuur xalay waxaa la ciyaaray ciyaar xiiso badan oo ay wada dheelayeen kooxda Chelsea iyo Leicester City, kulankaasoo lagu wada dheelayay garoonka Stamford ee kooxda Chelsea. kulankana oo ku dhamaaday bareejo 1-1, waxaana goosha la hormartay kooxda Chelsea, waxaana u dhaliyay laacibka Mountain daqiiqada markay ahayd 7 daqiiqo. qalad ka yimaaday difaaca Ndidi, kubad uu markaas uu qalday uu kaga faa'iideystay laacibkan da'da yar. sidaasna ayay hogaanka ay ku qabatay lugtii hore ee ama habkaanbiya hore ee kooxda Chelsea. isku soo noqodkii ayaa Leicester City ayay weerar kala duwan oo wareersan ay ku qaaday kooxda Chelsea. markii dambe ay 67 daqiiqo markay mareysay ayaa Ndidi dhaliyay goolkii barbarada ahaa, sidaasna ay ku noqotay barbaro. Ndidi sidaas uu u soo ceshtay goolkii uu iska qalday. inkastoo Chelsea ay weerar xad dhaaf ah lagu hayay kulankaasi, gabagabadii ciyaarta markay ahayd ciyaar aad xiiso badan ayay ahayd, sidaasna ayay bareejo ay ku kaleen barbaro. sidoo kale Cabdinuur waxaa xusid mudan kooxdan Chelsea sida Premier League loo bilaabay ilaa haatan maysan badinin. kulanka ugu dambeeyay ee la dheeshay kooxda dhigeeda Manchester United ee halkaas guuldaro ee kala soo kulantay 4-0. sidoo kale Cabdinuur tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa ka warbixiyay kulankii xalay ee la dheeleen kooxda Leicester City, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: runtii waxay ahayd bilow fiican, waxaan ku hogaamin karnay ciyaarta 2 ama 3 ayuu yiri. waxaan ahayn kuwo degdeg ah isla markaana firfircoon, kadibna waxaan ogolaanay inay ciyaarta ku soo laabtaan. qaybtii labaad kuma aanan faraxsaneen sababtoo ah waxaan iyaga u ogolaanay fursado badan ee dhanka weerarka ah, ayuu leeyahay Cabdinuurow. sidoo kale hadalkiisa wuxuu sii raaciyay tababaraha kooxda Chelsea: waxaan kaliya eegi karnaa nafteena dhammaan kulamada aan ciyaarno, waan ku faraxsanahay kubadda heesashada. wuxuu leeyahay ma aanan haysanin fursad nagu filan si aan u dhaqdhaqaajino kubadda, waa inaan haysanaa shakhsiyad dheer ah, waxaana taas ku aragnaa
bartamihii isbuuca laakiin maanta ma helin ayuu leeyahay tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard. Cabdinuur oo caawa waxaa jiro ciyaaraha Premier League waxaana dheeli doono Wolves iyo Manchester United kulankaas oo ay soo gali doonto 4 habeenimo caawa waxaana lagu dheeli doonaa garoonka Wolves. Cabdinuur oo xubintii ciyaaraha waa nageynta. aad ayuu u mahadsan yahay Nuuruddin Xasan Deeq oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. iminkana akhbaaraadka caalamka. nin Mareykan ah oo lagu xiray inuu halis ku yahay xarunta Yuhuudda. booliska gobolka Ohio ee dalkaasi Mareykanka ayaa xiray nin ay rumaysan yihiin inuu ku hanjabay inuu toogasho ka geysan doono xarun ay leeyihiin dadka Yuhuudda. James Rendon oo 20 jir ah ayaa online ka soo dhigay muuqaal nin toogasho geysanayo wuxuuna ku dul qoray waxaan aqoonsanayaa xarunta Youngstown ee ku taalo Pittsburgh. baaritaan lagu sameeyay gurigiisa ayaa lagu soo qabtay qoryo dhowr ah, waxyaabaha jirka difaaca ee la xirto iyo qalabka madaxa la gashado ee difaaca xaqiiqda dadka ka ilmaysiiya siday booliska sheegeen. toogasho ka dhacday xarunta ay dadka Yuhuudda ah leeyihiin ee ku taalo Pittsburgh ayay sanadkii hore ku dhinteen 11 ruux. James Rendon ayaa sabtidii lagu xiray New Middletown halkaas oo u dhow Youngstown waxaa lagu soo oogay dacwad la xiriira inuu ku hanjabay inuu gabadfal geysanayo. baarayaasha ayaa sheegay in feejignaan la sameeyo markii uu Instagram-ka ka soo muuqday muuqaal tusinaya nin xabad ridayo oo qoraal lagu dul qoray. booliska ayaa sheegay in ninka toogashada ka geystay xarunta Youngstown Jewish Family Community uu yahay Seamus Rondon. Vince Ogido oo ah taliyaha booliska ee New Middletown ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in Seamus Rondon uu xulafo la yahay James Rondon. wuxuu tilmaamay in loo aqoonsado inuu toogasho ka geysan rabay xarunta Yuhuudda. arrintaas ayaan horseeday in baaritaano xoog badan la sameeyo. dhanka kale wadankaas Uganda 10 qof oo ku dhimatay qarax ka dhashay gaari siday shidaal. ugu yaraan 10 ruux ayaa ku dhimatay galbeedka dalka Uganda kadib markii uu qarax ka dhashay gaari siday shidaal oo ku dhacay 3 gaari oo kale. booliska dalkaasi ayaa war ay soo saareen ku sheegay in dadkaasi dhintay ay gubteen kadib kolkii shidaal uu waday gaarigaasi uu qabsaday dab. gaarigaasi xamuulka ah ee siday shidaalka ayaa warka intaas uu ku darayaa in uu ka yimid dalka Kenya isla markaana uu u socday Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. ilaa 30 meherado oo kuwa ganacsiga ah ayaa ku gubtay qaraxii ka dhashay shidaal ka saarnaa gaarigaasi. waxaana afhayeen u hadlay ciidamada booliska dalka Uganda uu sheegay in labada gaari oo taxi ah iyo mid kale oo siday 20 qof ay soo gaareen waxyeelo. dhageystayaal warkii aad kala socoteen Radio Gado qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay. waxaana sidoo kale warkeenaad kala socon kartaa barta Facebook ama YouTube aan ku leenahay Radio Gado codka gobolka Gado. waxaana warka inta uu socdo idinla socodsiinayay aniga oo Cabdinuur Cismaan Cabdi. dhanka farsamadu waa Cabdullaahi Maxamed Xaamud. intaan warkan warka xigaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.